Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Arday soo dhowaada, waa maadadeennii atarbiyatu lislaamiya. Waa dersigii 6aad oo aan u soo dayno ardayda fasalka 6aad. aniguna waxaan ahay ustaad cali maxamuud jaamac. maanta oo talaado ah, taariikhduna ay tahay 6da bisha 5aad 2020, waxaan casharkeenna ka bilaabaynaa safxada 55. xadiidkii 2aad ayaynu soo gaadhnay. xadiidka 2aad ciwaankiisu waa xusnulmucaamala, mucaamalada oo la wanaajiyo. mucaamalo marka laga hadlayo wanaajinteedu, allah subxaanahu wa tacaalaa way noqotaa xaqiisa in la caabudo, laga cabsado, cibaadada si fiican loo sameeyo. bini aadamka xaggiisa way noqotaa oo aad xusnulmucaamalo kula dhaqmayso, adoo wejiga u furfuraya, hadalka deeqsiinaya, dhibaatada ka haysanaya, u fududaynaya axwaashooda. xayawaanaadka way noqotaa sida bisadaha guryaha inagula nool, xoolaha caadiga ahee dariiqyada maraya, in waxa weeye loo samafalo. marka xusnulmucaamala meelo badan ayay gelaysaa. xadiidkeennan maanta aan qaadan doono waa xadiidkii macruufka ahaa ee ahaa ittaqi llaaha xayثumaa kunta wa atbaci sayi'ata alxasana tamxuhaa. xadiidkaas ujeedooyinka aynu maanta uga dan leenahay qaadashadiisa waa 2 qodob. 1, inaan baranno xaqa allah subxaanahu wa tacaalaa uu inagu leeyahay, iyo inaan baranno qofka markay xumaani ka dhacdo in laga rabo inuu wanaag ka dabageeyo. alxadiidu الthaani xusnu lmucaamala. can abi darin waxaa laga wariyey jundub ibnu junaada iyo wa abi cabdiraxmaan mucaad ibnu jabal radia allahu canhuma. labadaas saxaabiba waxaa laga wariyey can rasuulillahi sal lla ly slam, iyaguna rasuulka waxay kasii wariyeen qaala uu yihi nebigu sal allahu alayh wasalam, ittaqi llaaha alle ka cabso xayثumaa kunta meel kastaad joogto, wa atbic raaci asayi'ata xumaanta kaa dhacda alxasanata wanaag tamxuhaa way maydhaysaa, way tirtiraysaa. rawaahu tirmidiyu ayaa wariyey wa huwa xadiidku xasanun waa xasan oo saxiixun saxiixa. nebi maxamed sal allahu alay wasalam isagoo saxaabi la hadlaya, waan aragnaa sida ka muuqata ittaqi waa hal saxaabi baa la hadlayaa. wuxuu yihi nebi maxamed sal allahu alay wasalam, ittaqi llaaha xayثumaa kunta, alle ka cabso meel kasta oo aad joogto. oo waxaad la socotaa aad ogaataa in allah subxana wa tacaala ku arkayo, ku maqlayo. haddaad guriga ku jirto, hadduu kuu soo xidhan yahay, haddaad waxaweeye jiifto, haddaad taagan tahay, haddaad soconaysaba, allah subxaanahu wa tacaalaa in uu ku muraaqabaynayo waa inaad taas aad dareensanaataa. haddii intaa haddaba arrinkaasi uu jiro, bini aadamkuna uu dembaabayo, maxaa laga rabaa hadday xumaani ka dhacdo? wa atbaci sayi'ata alxasana, xumaani hadday kaa dhacdo wanaag ka dabagee. se uga dabageynaysaa waxa weeye laa ilaha illa allah, laa ilaha illa waa kugu filan, waa wanaag aad ka dabageysay. waxa weeye inaad ka murugooto waa wanaag aad ka dabageysay. inaad 2 ragcadood tukato waa wanaag aad ka dabageysay. haddaad qof aad dulmiday ay tahay inaad wixiisi u celiso waa wanaag aad ka dabageysay. tamxuhaa, sayi-adu waxa weeye kaa dhacday, xasanada ayaa maydhaysa, wanaagaas ayaa maydhaya. kaasi waa xadiidkii. tarjamatu raawiyeyni, labada saxaabi ee xadiidka wariyey taariikhdooda aan wax yar ka qaadano. abu darin jundub ibnu junaada ayuu ku hormaray. wuxuu yihi saxaabiyun waa saxaabi oo jaliilun weyn, aslama wuu islaamay qadiiman mar hore, isagoo baadiyaha ku nool oo maka meel ka fog ayuu maqlay maka waxa weeye nebi baa ka soo baxay. halkaa intuu ka soo orday ayuu nebiga u yimid, diintii ka qaatay, qoomkiisii dib ugu celiyey. waxa weeye saasuu abu darin ahaa. yudrabu bihi lmathal, waxaa loo soo qaataa tusaale fi sidqi xagga runta, yani aad ayuu u run badnaa, run ayaa loo soo qaadan jiray
marka qof run badan laga hadlayo waxaa lasoo qaadan jiray waxa weeye abudar ayaa lasoo qaadan jiray. wa huwa abudar wuxuu ahaa awalu man kii ugu horeeyey oo xaya ku salaama rasuulahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alleh bitaxiyati lislaam salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku salaama. tuwufiya waxaa la oofsaday wuxuu dhintay sanadkii waxa weeye 32 ee hijriyada 32 ee hijriyada ayuu dhintay. saxaabiga labaad ama raawiga labaad abu cabdiraxmaan weeye mucaad ibnu jabal al ansaari ayuu ahaa. kaana wuxuu ahaa shaaban nin dhalinyaro ah oo jamiilan qurux badan wa min afdali shabaabi alansaar ansaarta dhalinyaradeeda ninkii ugu fadliga badnaa ayuu ahaa. xilman xagga dulqaadka wasakhaa'an iyo xagga deeqsinimadaba. aslama wuu islaamay wa cumruhu iyadoy da-diisu tahay 18 jir isagoo ah. waayo watuwufiya waxaa la oofsaday sanadii 18 ee hijriyada. macaani lmufradaat mufradaadkan waxa weeye macnayaalka aynu ka qaadanayno ama erayadii aynu soo qaadanay macnayaalkeeda. halkaa waad aragtaa alkelimaan qornay xaggeeda kasii horeysana waxaan ku qornay macnaha kelmadda macnaheeda. ittaqillaaha macnaheeda xagga hore fiiri waa maxay? waa ijcal ka yeel beynaka adiga iyo wa beyna cadaabillaahi alle cadaabkiisa waxaad ka yeeshaa wiqaayatan teed adiga iyo cadaabka alle waa inaad wax iskaga dhigtaa naftaada waa inaad cadaabka wax uga dhigtaa oo waa maxay? inaad allah subxaana watacaala caabudo, inaad sadaqa la baxdo, xumaanta inaad iska dayso, waalidka inaad adeecdo oo warkooda aad maqasho. saasoo kale ayay noqonaysaa wax aad iskaga dhigtay naarta alena waa cabsi. 2 xaythu maa kunta macnaheedu waa maxay? waa ayna maa kunta meel kastoo aad tahay. asayi'a macnaheedu waa maxay? waa almacsiya xumaan. alxasana macnaheedu waa maxay? waa adaaca. wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan macnaheedu iyadana maxay noqonaysaa? wa khaaliqi nnaasa dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dabeecad oo xasanin wanaagsan. wa khaaliqi nnaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin xasan dabeec wanaagsan. waxa macnaheedu muxuu noqonayaa? caamilhum kula dhaqan mucaamalatan la dhaqmid xasanatan wanaagsan. tamxuhaa macnaheedu wuxuu noqonayaa tuziiluhaa tamxuhaa way ka tirtiraysaa tuziiluhaa way ka suulinaysaa. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu. casharka 24 saac wax ka badan lama haysan karayo waxa weeye layliskiisa. markaa kan laylis ma leh laakiin waa casharada dambe. aad baad mahadsantihiin.